qaar ka mid ah dadweynaha magaalada Burco ayaa sida fiinta uga qayliyay wax qabad la'aanta dawladda hoose iyagoo ku eedeeyay in dawladda hoose lunsatay dhulkii danta guud ee ka dhaxeeyay shacabka. Dadweynahan oo warbaahinta kula hadlay afaafka hore ee garoonka kubadda cagta magaalada Burco oo uu ka muuqdo dayacaad u fara badan ayaa waxay ku eedeeyeen in dawladda hoose loo xilsaaray hawlaha dib u dhiska garoonka oo ay kaga mashquuleen dano kale oo aan shacabka loo bayaamin. sheegaynaa xukuumadda iyo dawladda hoose in halkan gidaarkii taagnaa kii dhacay mooye kii kale uu dhacayo waanu waxba la taagnayn waxaanu leenahay waxa laga qabto isaguna intaanu dadlayn oo dayaca laga daayo baableeshinka dadka shicibka ah oo waxa loo qabto dhalinyarada gobolka Togdheer nasiib darro waxa ku ah dawladda hoose maayirka ku-xigeenka qolada xoghaynta waxna nasiib darro ku aabay gidaarkaadu dadka laayay imanka waxa ka soo biragtay muddo ah ilaa muddo 2 bilood gidaarka inta taagana waxba lama taagna waxan wixii dantii guud hawshii loo irmugaday waxa laala waxay ka qabteen ma jirto waxay cunaan mooyaane kowdhadi waa nasiib darro marka waxaan leenahay inay dawladdu arrinta wax ka qabato gidaarkan imanka taagana waxba lama taagna u dhacaya dad kale oo galaafnay horta garoonka wuxuu dumay bergii roobowgii marka roobowgii markuu dumay garoonka dad badan ayaa wax ku waxyeela marka markuu dadku waxyeelay garoonka wuxuu doonayay samee dawladda waxaan u sheegaynaa Siilaayo in garoonka la sameeyo si degdeg waliba sida demokraansa dhalinyaradu waxay ku qabtaa garoonka uu dayacmo marka daciirantaa si degdeg dawladdu waxa ku qabato waxa ku ciyaara dhalinyaradii waa ku ciyaarta marka garoonka si degdeg ah looga qabto garoonka dawladdu way dayacday aad iyo aad buu dayacday. geesta kale xildhibaanka oo ka mid ah golaha deegaanka magaalada Burco ayaa dabka ku sii shiday xildhibaanada golaha deegaanka Burco isla markaana bayaamiyay in shakhsiyaad gaar ah ay iibsadeen dhulkii danta guud. ma aragtaan waxay iibsateen mooyaan meel halkaas ay iibsanayaan mooyaan waayo haday halkan ay wax ka qaban lahayd haday wax dhisayaan marka bulshada waxaan u cadeynayaa cid wax dhisay cid wax soo wadaa inayna jirin danta guud inta hadhowna ilaashan iminka inta kale marka la soo laastana kanuun baa aakhirka loo imanaya wax kale oo hadhay ma jiraan halkana cashuurtii ummadda laga qaadayay degmada laguma dhisi kari waayin waxa ku baxayaana $1 ma gaarayso meel kale ku bixiyaan $1 marka halkan waxay cadeynayaan in la dhisi kari waayin ayna dawladda hoose u jeedin wax iibsoon mooyaan danta guud laasa mooyaan inayna u jeedin maayirka iyo maayir ku-xigeenka iyo xogayaha iyo xildhibaanada ku taageersanba wax cun mooyaan ma garanayaan wax qabta marka halkan waxaan u soo jeedinaa bulshada Burco inay dhisato inay masaajidada looga kacade ilaa meel kale oo loo kaca garameynay. maalmihii u dambeeyay waxa dadweynaha magaalada Burco iyo qaar ka mid ah xildhibaanada golaha deegaanka Burco ay dhaliil hawada u marinayeen dawladda hoose ee magaalada Burco taasoo ay ku eedeynayeen in shakhsiyaad gaar ah lunsaday dhulkii danta guud isla markaasina ay ka gaabiyeen hawlihii loo xilsaaray golaha deegaanku. Maxamed Xasan Diiriye Maxamed Joker telefishinka caalamiga Ariel TV Burco.